kulan ay isugu yimaadeen jaaliyada Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa ay ka dhacday magaalada London. kulankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano, siyaasiyiin iyo aqoon-yahano, isla markaana waxa looga hadlayay midnimada iyo wadajirka shacabka Galmudug. waxa ayna u dhacday sida tan. waxaanu ku faraxsanahay caawa inaad ka soo qayb gashaan xafladda lagu dhisahayay guddiga maamulka Galmudug ee magaalada London. rag badan baa ka soo shaqeeyay. waxaa dhabarkayga taagan ragii hawshan mudnaanta iska lahaa oo ka soo shaqeeyay anigoo ah xogayihii guddiga Galmudug ee magaalada London. halkan oo caawa ay ka dhacday xaflad ballaaran oo lagu maamuusayo jaaliyada Galmudug ee UK ay ku dooratay guddoomiyaal iyo guddoomiyaal ku xigeen iyo guddi matali doona gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee Galmudug oo halkan caawa isugu timid iyadoo danaheeda ka tashanaysa iyo danaha Soomaaliyeed. warkaygu wuxuu yahay hawshaas aan caawa u fadhino ee walqalkeedu yahay jaaliyadii Galmudug ee dhisatay maamul ee samaysatay dib u yagleelid hawshii ay hayeen inay sii laba jibaaraan guda iyo bannaanba. waxaan isku bogaadinaynaa arrinkaas isaga hooyooyinka sharafka leh. waxaan ayagana leeyahay hawshaas u soo dhabar adeegteen oo aad muddo badan raadinayseen in maamulkii jiray la sii xoojiyo. waan idinka guddoomay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xafladdan qiimaha iyo qaayaha weyn leh ee jaaliyadda Galmudug ee UK qabqabaysay taasoo ku tayeynaysa midnimada jaaliyadda Galmudug ee UK. kasoo qayb galay kamaayar ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. muddadii yareed aan joogana aad iyo aad baan ula shaqeeyay sidii u qabsoomi lahayd ama loo midoobi lahaa oo looga bixi lahaa maaragtay iskhilaafka iyo dhibaatada. guddiga maantayto aanu si guud meel kastoo aan joogno waxay iyagu noo tilmaamaan kaliya inaan qaadanno aanu u wada fadhinno oo uu guddoomiyaha u yahay maxamed ciise iyo ku-xigeenadiisa iyo xoghaynta. hal talo oo midaysan baan qaadannay waana ku wada gowracnaan doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan muxuu ahaa lagu taageerahayo dib u yagleelidda ama dib u dhiska guddiga muxuu ahaa Galmudug ee dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. waxaan u hambalyaynayaa shirkan wanaagsan oo muddaba laga shaqaynayay sidii la isugu imaan lahaa dib la isugu abaabuli lahaa. waxaan rajaynayaa guddiga oo kaashanaya dadkiisa inuu horay u socdo tillaabsado dhismaha dalka ka socda inuu qayb ka qaato. maxamed ciise waxaan leeyahay maxamed ciise guddoomiyihii labaad baa lagu doortay oo beesha guddoomiye jiro noqo abaabulo noqo annaguna waa ku taageeraynaa dalka iyo dabadda inta jirtaaba. dhammaanteen waxaan isugu nimid haddaan nahay jaaliyadda reer UK oo Galmudug wada tashigeenna iyo waxqabadkeenna iyo sidaan horumar u gaari lahayn iyo sidaan wax u qabsan lahayn. maalin baan waxaan risaatirow ilaahow adigaa suldaanaho samawaadka taago saacada iyo maalmaad samawaadka taagto dhulka saanka yeesho geedaha ka saarto bini'aadan siisee Soomaali nabadeed si saamax daacadahan saxabada u horsaday sare jooga igu si sahalna igu soo dhiib. marka maxamed ciise waxaan ku leeyahay hagaajiyo noqo isku duwan noqo hoggaan daacada waa tahay. aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa shirka halkan ka dhacay ee iskugu yimaadeen qurba joogta Galmudug. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. maanta halkan waxaan u qabanay shirkan oo guddiyo ugu saarnay kuwa dumar iyo kuwa raga mas'uuliyiinteennina matalaysa uga soo qayb gelinay inaan cudurkiina hayay tafaraaruqiina hayay dhibaato inaan ka baxno. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa qowlkeenna inuu mideeyo cududeenna mideeyo ehelnimada midowno si aan ummadda kalena ku gaarsiino. waxaan rabaa inaan mid taabto ku saabsan jaaliyadda guddoomiye maxamed ciise jaamac. jaaliyaddan horey u jirtay xoogaa bay hoos u dhacday dib baa loo yagleelay waa la xoojiyey midnimadeeda in la adkeeyo kala dambaynta in la adkeeyo cid aan madax lahayn ma guulaysato
qofkii madax loo magacaabo ha yaraado ha weynaado in laga dambeeyaa la rabaa. Yusuf Garabey, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, London.